hadduu Ilaahay yiraahdo waxaynu bilaabaynaa taxane ku saabsan dhaqanka reer guuraaga waxaana u soo dhigi doonaa qaybta koowaad waxaan kaga warbixinaynaa noocyada reer guuraaga waxaana u kala qaadaynaa reer cad iyo reer nugul reer cad waa kuwa dhaqada geela iyo riyaha reer nugulkuna waa kuwa dhaqada lo'da iyo idaha waana si faahfaahin doonaa hadduu Alle idmo qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa geediga reer miyigu ay guuraan kaynaan ama hayaan iyo daldalasho digarrogasho xabawar iyo laxos ayaa loo kala qaybiyaa iyagana waynu si faahfaahin doonaa qaybta saddexaad waxaynu kaga hadli doonaa hadduu Alle idmo dhismaha aqalka reer miyiga waxaana loo qaybiyaa dhig iyo dhambal doc dahada ama ilxidhka kashkaashka dabdhiga iyo ardaaga ama golayga mid walbana waynu faahfaahin doonaa waxaan qaybta afraad kaga hadli doonaa guurka waxaana u qaybin doonaa 18 qaybood oo guurku ahaan jiray haddana qaybo kamid ay sii jiraan iyagana waynu faahfaahin doonaa waxaa kamid ah hadaynu qayb ka sheegno guurka xarig xidhashada guurka doon xidhashada guurka magacdoonka guurka muunaynta guurka xiskiisanka iyo wixii la mid ah waa 18 nooc oo guurku leeyahay qaybta shanaad waxaan kaga hadli doonaa agabka reer miyiga yani alaabadii reer miyigu lahaan jireen qayb wax lagu shubto sida haamaha ilaha waxa weeye qumbaha sibraarka iyo wixii la mid ah iyo qayb wax lagu cabo ama qayb wax lagu cuno sida digsiga iyo wixii la mid ah iyo qayb lagu dagaalamo sida waranka seefta gudunta gaashaanka falaadha iyo wixii la mid ah iyo qayb xoolaha loo xidho sida koorta lafteeda kala duwan boodaanka afqalacda afjeex waxa weeye iyo aleenka iyo qoonaha qaybta lixaad waxaan kaga hadli doonaa suugaantii Soomaalida sida gabayada geeraarada jiiftada buraanburka heeska iyo wixii la mid ah qaybta toddobaad waxaan kaga hadli doonaa ciyaarihii reer miyiga dhaantada shiribka jandheerta saarka waranlaha qaybta waliba si farabadan tahay waxaa kamid ah ula qalwaysiga shaxda golayga jaraha qorituurka jaandabadhiga shabka iyo shanoodka leelo goboleyda way farabadan tahay iyadana waynu sharixi doonaa qaybta sideedaad waxaan ka warbixin doonaa nolosha reer miyiga mar waxaynu kala qaadaynaa dad duunyo iyo dugaag iyo ugaadh marna waxaynu kala qaybin doonaa qayb midigta ku qaraabata wax ku cunta iyo qayb micida wax ku cunta qayb ku socota iyo qayb baabacada ku socota iyo qayb dhagle iyo qayb cakaw leh iyagana waynu faahfaahin doonaa way farabadii ma soo koobi karo insha Allah ilaa iyo waxa weeye dhowr iyo 10 qaybood ama dhowr iyo 20 qaybood buu noqon doonaa qofka raba inuu dhageysto ama uu wax ka faa'iido Facebook iyo YouTube ka soo dhigi doona sababtana YouTube ka soo dhigi doona waxaana idin soo dhigayaa linkigiisa xaggan hoose aad baan idin salaamaya la socod wanaagsan oo xiiso leh